ku ahayn mase waxaan ku jaha wareersaneen dadka dilay ma dowladda dishay mase qolo kale loo soo adeegsaday gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhex maray dagaal dhex maray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolada soo dhex gashay wuxuu horta lacag badan way isku dirtaa laba qof oo saaxiib lacag badan way isku dirtaa laba qof oo jecel lacag badan way isku dirtaa dadka waxa wadaaga saaxiib leh ku ahaa dhinaca shaqo noo saaxiib hadii kale saaxiibtinimadeen aakhirka ay ku soo biishoonaysaa in la kala tago iyo in midiyo la isgeliyo mase xabada la isku dhufto saasay ku soo biishoonaysaa marka shaqadaada iyo saaxiibkaaga ha ku kala gooniyo alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan wanaagsan dhammaan bulshooyinka ku xiran youtube-ka Faisamir waa idin salaamay sida wada dhantihiin inta roo joogto inta cusub iyo inta gadaal ka imaan doonto isku soo noqod wacan oo wanaagsan asxaabteeda sida wada ognahay maanta horta waqti hadda soo afurnay mar dhow aan afurka afka ka qaadnay alxamdulillah caloosha waa noo buuxdaa hadda si fiican u hadli karnaa oo energy haysanaa asxaabay horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xalayto waxa lagu toogtay mase lagu dilay atooraha badda waa wiilkan dhalinyarada ah anaga oo dhan maanta waxaa isla dhexmaraynay oo waxaan confuse ku ahayn mase waxaan ku jaha wareersaneen dadka dilay ma dowladda dishay mase qolo kale loo soo adeegsaday inta badan dadku waxay lahaayeen waxaa dishay al-shabaab laakiin al-shabaab ma aysan dilin waxaan soo ogaanay xogti dhabta ah hataa aniga waa kasoo hadlay video soo dhigay maanta duhurada saaka duubay laakiin duhurada soo dhigay haddana waa la afuray waxay noo tahay adiga waxay noo tahay 3 saac iyo baraska dheh oo habeenimo marka maasha Allah asxaabay sida wada ogeyn oo dad badan ay isla dhexmarayeen wiilkan waxaa dishay waa la dilay waa la toogtay yaa dilay Soomaalina qof markuu caan yahay dhalinyaro yahay inta badan Soomaalina qof markuu caan yahay dhalinyaro yahay oo baraha bulshada ku jiro inta badan oo la dilo mase geeri ay ku imaato inta badan waxaa loo jeediyaa dhinaca kale oo waxa la qoladaas dishay mase qolo fulana dishay mase dowladda dishay adi kulli waa la marba qolaa loo dhiibaa laakiin si xaqiiqda dhabta ayaa hadda soo ogaanay aniga markaa afuray maadaama maanta video way ku soo dhahay waxaa heli doontiin goor dhow cida ka dambeysay dilkiisa hataa qoraalka ciwaanka videoga aan soo dhigay maanta oo aan ugu taasiyeenay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo ehelada iyo qaraabada oo ka tagay atooraha badda Allah yarxamar raximin waxaan maqlay ciyaalo laha laba cunugoo lahaa ilaahay awlaadiisa iyo xaaskiisaba iyo waalidiintiisaba iyo walaalihiisaba iyo inta xigaankiisa oo xirtay asxaabtiisa iyo inta maqalkiisa iyo muuqiisa taqaanay aan kullee muuqiisa iyo maqalkiisaan aqaanay wiilkan aqoon kale uma lehi as Soomaalnimo as wiil dhalinyaro oo dadaalay ahaan ayaa dhiiga ii soo kaciyay oo aan uga soo hadlayaa videogan ma rabo inuu ka dheeraado 10 daqiiqo ugu badnaan xogta ayaa la soo ogaaday oo wiilkan dhinaca dowladda ma aysan dilin dhinaca kalena ma aysan dilin laakiin waxa la soo ogaaday cid dishay marka videogan ayaan wax yar dhageysanina ka bacdina waa si gudagaleena waana u duceynayna wiilka lagu dilay magaalada Muqdisho waana kana ay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan aynu joogno kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyay looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxaana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Leelefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caawiyaan bulshada Soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyo oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan
gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhex maray dagaal dhex maray mindi la isku dhuftay kadib ay bistoolada soo dhex gashay dilkana uu fuliyay gacan ku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhexdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ogol waxay sameeyay jiray ee iga tag adiga iyo hadaan ka tagay wixii aan kugu leeyahay xaq aysi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore oo inta Allah kugu anfaco dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka galishay kana bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta kala wareegay dabadeedna uu 3 xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidii maqalnay wiilkan waxaa dilay dadka inta badan waxaa la isla dhaxmaray maantay in ay qolo kala dishay laakiinse maanta dawladda waxay noo cadeeyeen in wiil la shaqeey jira mase saaxiibkiisa mase gacan yarihiisa mase filmaana isla keeni jireen sida oo sheegay ma aqaan ba filna isla keeni jireen aan wiilkan aqoon badan u maleeyay laakiin TikTok iyo meelahaas ka arki jiray laakiin wuxuu dhahay gacan yarihiisa wiilka sadaqada la aroori jiray ayaa waxay isku qabsadeen lacagaha sadaqada maadaama ay aroorinayeen lacagtoo gaartay ilaa $60,000 marka wiilkii kale ayaa damac ka soo galay lacagtoo ku dhahay intuu u imaado wiilka lacagta waxa iga sii iyo lacagtan anaa awal hawshan bilaabay oo hawshan anaa wada gurmadka marka walaalo iga tag sidii dagaal ku imaaday mindi iyo la isla dhacay ilaa ay bistoolo ay gato wiilkaane taas sidaas darteeda ka looga siiyo saasoona ku dhintay wiilka atooraha badda waxaana dilay wiil saaxiibkiisa mase dhinaciisa joogay oo mar walba caawinihiisa ahaa iscaawidiisa oo mar walba dhinaciisa taagnaa oo wax sadaqada la aroori jiray oo dhinaciisa mar walba waxyaabaha isla qaban jireen ayaa ku soo jeestay oo dhahay lacagta way badata ee wax naga sii iyo lacagtan hawshan anaa ku soo bilaabay adiga waa ila waday ee niyo iga tag iyo seeba ii dhihi kartaabo sidaasay ku imaatay gacan la isku qaaday midiyaal isku dhuftay ilaa iyo bistoolo ay sheekada gaarto marka والله وبالله هذا ugu xumaa horta lacag badan way isku dirtaa laba qof oo saaxiib lacag badan way isku dirtaa laba qof oo jecel lacag badan way isku dirtaa dadka waxa wadaago mar walba waxa isku diraayo adiga iyo qof aad saaxiibtiin mar walba hadii aad isku imaatiin mase dhinac horumar oo qof aad caawinaysid mase adiga horumar guulahaaga aad gaaraysid hadii oo isku imaatiin oo isku shaqo aan noqotiin mar walba isku dhacaysiin waxaana imaan karto in aad gacan isku qaadin oo mindiya isgelisiin ilaahayaan ka magan galay in ana aniga qof saaxiib mase qof dhinaciisa aan joog mase qof dhinacayga jooga oo ilaa heerkaas isla gaarno ilaahay ka magan galay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wax kasta way dhacaan Soomaaliyeed hala isku dulqaato oo qofkii adiga saaxiibka ay ka dhiganaysa mise qofka adiga shaqaalaha oo mar walba isla shaqeynayeen oo hawsha isla soo bilaawdeen mase dhax ka soo gala hawsha mase ha kula soo bilaaw mar walba markay meesha lacag ay imaato lacagtay si kordhayso qofa marka waxa uqdad galayso marka dadku way jireen qof walba waxa dhilaa waxyaabahan oo kale marka sameynaysid isku day in aad kaliya hawlahaaga wadatid hadii qof saaxiib inta shaqadaada soo gali leed mase hawsha isla bilaaway leed waxa kaaga fiican oo kaaga fadli badan in aad kaligaaga sameysatid oo hadii kaligaaga sameysatid hadii aad ka maarmi weysan oo qof aad u baahatid inaad qof shaqaaleysid qofkaasna aad bari hadii aad u bogi weyso sheekadiisa aad iska bari kartid laakiin qof saaxiibkaaga hawsha kula soo bilaabo qofka saaxiibkaaga uu og yahay meel walba ka og yahay marka dhinac walba ka soo taagi kara marka waxaan idin ilaa howlahaas oo kala sadaqada marka bilaabaysiin ilaahay garabkeena ha galo mar walba qof adiga xigtadaada mise qof saaxiibkaaga ha gelin howlahaas oo kale hadii kala dhibaatadan oo kala ku dhacayso saaxiib leh ku ahaado dhinaca shaqo saaxiib leh ku ahaado dhinaca shaqo noo saaxiib hadii kale saaxiib tirimadeena aakhirka ay ku soo biishoonaysaa
in la kala tago iyo in midiyo la isgeliyo mase xabado la isku dhufto saasay kusoo biyashubanaysaa. marka shaqadaada iyo saaxiibkaaga ha kuu kala gooniyeysanaadaan. waxaana dhihi lahaa familkiisa iyo ehelada iyo qaraabada iyo dhammaan bulshaweynta soomaaliya samar iyo imaan ilaahay ka siiyo. wax walbana adduunkan way dhacaan, ilaahay wejigiisa la arkeyn maahine wax walba waa la arkayaa. barnaamijkana ku dheeraan maayo. almuhiim xaqiiqda sida ay ahayd, wiilkan qof dowlad ma dilin, qolo kale ma dilin, waxaa dilay qof asaga la shaqeynaya, shaqsi la ahaa ayaa lacagta ay shaqeeyeen damaca kasoo gala. lacagtana sadaqa haday tahay in damaca kasoo gala ma ahan waxaan maxaa lasoo dhiibay masaakiina lasoo dhiibay, bulshaweynta soomaaliyeed ugu soo deeqday. sadaqa hadii lagu soo dhiibo lagu dhaho shilinkan heblaayo ugeey masaakiinta sii, shilinkaas waxaa lagaaga baahan yahay sida loogu talagalay, meesha loogu talagalay inaad u dirtid mase siisid. haddii laakiin shilinkaas adiga damac kaa soo galo dhibaatadan kala dhici karto. marka sadaqo waa sadaqo. aniga haddii aan maanta shilin kusoo dhiibto oo ku dhaho ilmahaas agoonta iisii, waxaan rabaa shilinkaas adoo shilin ka qaadan inaad ii siisid. haddii laakiin oo qof kale aadii la geshid oo qofkii lacagta isla aruurinaysay damac soo galo, dhibaatadan kala imaan karto. raamaayo almuhiim inta dhibaato ilaah u naxariisto, wiilkaana ilaah u naxariisto, jannada firdaws ilaah ka waraabay. cabada gurigiisa runtuu joogaa, waqti fiican oo dhintay kuleebo, waqti lagu tuugo ilaahay laga baryo waqtigaan oo kale inaad dhimatid oo dhintay. alxamdulilah meel fiican oo aaday sidaa wada ognahay. ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaan eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo familkiisa, hooyadiisa iyo aabihiisa, naagtiisa, ilmihiisa ilaahay samare imaan ilaahay ha ka siiyo. annagana ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo. barnaamijkana intaasoo kusoo afjiraya waa anigoo ah walaashiina Faa'iisa Amiir oo idin leh peace and love. Soomaaliya nabad.